ورسول هذا صاحبي يا المعارضة وايد سلام والبو أدجوكتان ريال ليفربول وحنا لا يا مركز جنبك أتقاعدتين إن يشاك شيف اليونايتد سأسعتين ما ست ما جنبك أكلتين يقدر بقى يدينك سود هذا إن الله يا صاحبي يا كل ماضي هذا صار ما يدون استيقظنا مو قال كان حل دم إن سو جاردونا أو صقد حقه فالله مركو سو جار وحنا كعد البنا إن يشير جريس أو لايك صار تدان وعصب تاني الجنال كان سبسكرايب إنه صار أدبا أمها سنتهاي مانشستر يونايتد نجلس أي إسكسو جبجبيسان ليه كرنا إسكود مكتومي أي عاب وكمل مري nimankii Man City ahayna jugta iyo jangalabta ku socota ana Liverpool aan ku raaxaysan oo xilli ciyaareedkan aba Liverpool ayaan ku hormarayna Liverpool ayaa away u ahayd Sheffield United kulankaas oo soo dhamaaday 2 gool iyo eber Van Dijk caaga dahab maala Van Dijk alla waa ku dhalna waan ku difaaca kaliya waxa laga helaa Van Dijk Liverpool dhaawacyo badan ayaa galay subsla dhaawac ku baxay gool ayaa uu maqan yahay gacmoyn Alisson uu maqan yahay Jota Juni uu maqan yahay Matip Dawal uu maqan yahay liis dheer oo dhaawacay anaga noo yaalo waxa rajaynaynaa in ay ku soo kabtaan sida ugu dhaqsiyaha badan Sheffield United waxa laga diiwaan galiyay caawa kulanka hadda noo soo dhamaaday ciyaaryahanka dambeedka midig ee kooxda kubadda cagta Liverpool Alexander Arnold waxa lagu leeyahay waa difaaci ugu horeeyay taariikhda horyaalka Premier League waa difaaci ugu horeeyay toddobaatan iyo 5 gool assist garay dhamaan tartamada kooxdiisa markuu u dheelay ninkan dhaxda kama dheelo weerarna kama dheelo saasoo ay tan gool wada assist gareena ani mar wahani Liverpool ciyaareedka hadda socdo ku soo biiray maamino maadaama Alexander Arnold fans aan ahay oo dadka Messi Ronaldo say u taageeraan ani Arnold wuxuu iyo favorite-kay koowaad waa moogtahay marka uu ugu soo dhaweynayaa habeen walba gool assist Darwin Núñez kubadda loo karoosayo sisti oo after season ay noqon lahaayeen asaa galab marka Arnold taariikh dhiga record dhiga mar walba marka saaxiibayaal 2 gool iyo eber ku soo badina caaba kaneen sheet waxaan qaadanay 3 dhibcood ku lahayd kal heer wuu fiicnaa isagana Sheffield United bartaada nagu joog lugooy anaga uma dul qaadan karno Liverpool come on annana horyaalkan kii 20aad Anfield anageehay ii dhaaf adinka shidan leebsnaan karta ani waa shidanahay meesha tagana waa shita horyaalkan triple win ay imaadeen triple oo soo qaaday Man City mo hadan Liverpool horyaalka la qaaday ani meelna ugu ma socod see ku yeer sida naftirkeeda waa marka asxaabta qiimaha badan Liverpool xilli ciyaareedkan dhaawaca ku jiro mooyaane dhanka kalfida uu taa Mohamed Salah bandhigiis aad u hooseeyo Luis Diaz sagna sidoo kale bedel lagu saaray Mohamed Salah warra Liverpool ayaan tahan qadada mushaari ma la siiya Mohamed Salah ani waa yaabanahay Mohamed Salah ayaan tahan mushaari ma siiyo qadada ninka frustration dhan kala haysto asaga dhan baxalkiisa juuro ma Mohamed Salah foomkiisa ugu fiicnaa inuu ku soo laabto rajaynayna waliba record ayuu dhigi doonaa goolka uu dhaliyo oo wuxuu noqonaa 200 oo gool oo noqon doona goolkiisa ugu horeey markuu Liverpool waa sugoona goolkaas sugoona goolka 200aad ee Liverpool aan ugu dheeraaday hambale team Liverpool grades waxaan leeyahay meel buu aad joogtaan caaba hada Liverpool halkaas ugu gudbo kulamada waa ay badnaayeen oo ani Liverpool aan daawaday laakiin markay dhamaatay City iyo Chelsea iyo aan ahday nimankii Manchester City ahaa xaalka ku xun 3 kulan barbaray galeen Unai Emery iyo wiilashiisa waxba laga ma qaban karo marka Man City xilli ciyaareedkan ma jirto 4 sano xiriir aan qaada Premier League 4 mar xiriir aan qaada musbaaradii Pep Guardiola difaaciyadii muddo dheer uu ku shaqeynayay in ay shub ay noqdaan waa la kala dhantaalay waana la kala daadiyay Man City meel uma socotay xilli ciyaareedkan John Stones aan naga maqan hadoo noo soo laabto waa wax kaleenayna ababa dhiga dhibcaha oo miisaanka culus Aston Villa saasta loo geliyan ku dhahay limtay mo adar limtay ya goolkan ka dhili half time kadib markuu isku soo laabtay marka Man City xalkeeda halka soo marooya dhiga dhibcaha anaga hadana team Liverpool waxaan leefka ku heynaa Arsenal leefka ku heynaa Arsenal hada isnu cusub islaybar baalkaas ka toogana isnu xinin marka team Liverpool caaba anaga farxadeena mano inaa meelay isgeena mana Liverpool no badis City no la qabtay yes lady wax kale aan dhigi karna ma lahan marka come on guys idan leeyahay videogan waqti dambe uu soo gaarooya ana og adoo like saan ha bixin janalka adoo share gana ha bixin midda kale 30 kuna gaari rabnaa kaaga yariisaan jaranaynaaye naga gaarsiiye bal 30 kun naga gaarsiiye asxaabta qiimaha badan 50 kun hanoo dambeeyay okay Man City xalkeeda halka soo marooya xilli ciyaareedkaneetoy wax guul ma gaarin 5 kun ugu dambeeyay 3 kulan barbar caawana waa ka xalkeeda halka soo maraya
halkaas ugu gudbay Man City nasta nafaa leedihiin waa nafaa leedihiin nasta xilli ciyaareedkooda soo raaxaysateen nasta nafaa leedihiin iska nasta ah idin leeyahay nimankii Chelsea ahaa waa la qabtay caawa ayagana Bruno Fernandes gool oo cunay Scott McTominay 2 gool oo ka dhaliyay ciyaaryahankii hadda kaga imaada Man City Palmer anigi iyo Palmer ba form fiican oo aan ku qaadanayna kooxeena ana Liverpool oo ku wacdareynooya Palmer na Chelsea ku wacdareynooya marka ma idin galay saas waa marka Palmer na Chelsea ku wacdareynooya ana Liverpool oo ku wacdareynooya laakiin waa loo diiday Bruno Fernandes rigooro cunay Chelsea Man United oo kulankan oo kaga horeeyay Newcastle hal gool iyo ay kaga badisay caawa waa ay diideen oo waxay dhaheen ceeb waaysan ma u dul qaadan karno waxaan ku dhahay ayakana Chelsea ayay iska garaaceen Chelsea maxaa adiga ka qaldamay kula tahay maadaama ciyaarta full aan u daamanin oo 40 daqiiqo ugu dambeeyay ka gaaray wixii ra'yigaaga waa inoo muhiim qaybta comment waa inoo wadaagi kartiin yes sana rabaaye aniga sana rabaa sana rabaa horyaalkan hal ciyaareedkan wuxuu u dhaxeeyaa Arsenal iyo Liverpool challenge-ga Liverpool waliba suuqa Janaayo markii la garo waxaan ka codsanaa macallin Klopp hal difaac dhexe hal dartan way ku dhawaaqday Liverpool in suuqa ka doonayso markuu suuqa furmo ay hal number 6 hadii la keeno horyaalkan banaanka soo noo yaala Arsenal barankile waa wuxuu u maamlo unuqa iskala horyaalka bye bye